kadib markii muran midabo iyo heerar badnaa oo 8 sano jiitamayay una dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya uu ku soo dhamaaday in Soomaaliya xiriirka u jartay dalka jaarka la ee Kenya waxa soo baxay warar la xaqiijiyay oo daha ka rogaya inay ciidamada difaaca ee Kenya ay weerar ku qaadi doonaan magaalo xuduudeedka ku taala koonfur bari Soomaaliya ee balad xaawo ee gobolka Gado ila wareediyo iyo saraakiil amni oo kala jooga Kismaayo Dooble iyo Nairobi ayaa sheegaya inuu soo dhamaaday daabulad ciidan oo ay Kenya oo garabsanaysa Axmed Madoobaha Jubbaland iyo Cabdi Jananka balad xaawo ee TPLF Ethiopia hore gacanta ugu gelisay hadda se baxsad kalaamaha amniga ee Soomaaliya ay raadinayaan ay maleegayaan gulf cusub oo lagu qaado gobolka Gado oo gacan ku hayntiisa ay ku muransan yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland oo gobolkaas uu ka mid ahaa goboladii wax ka asaasay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ay weheliyaan qaar ka mid ah xubnaha ka soo jeeda gobolka Gado ee maamulkiisa ayaa si degdeg ah ugu laabtay Kismaayo shalay halkaas oo ay doonayaan inay kala socdaan qorshahan kana hadlaan warbaahinta haddii uu bilowdo maalmaha soo socda xoguhu waxay intaasi ku darayaan ciidamo laga soo aruuriyay deegaano ka mid ah Jubbada Hoose iyo qaar ka mid ah ciidamadii haraadiga Cabdi Janan oo tiradooda lagu qiyaasay ku dhawaad 300 oo askari ay hadda ku sugayeen xiro ay ciidanka difaaca Kenya ku leeyihiin duleedka galbeed ee magaalada Mandheera oo ku taala dhinaca Kenya ee xadbeenaadka labada dal halkaas ayaa la sheegay inuu ku dhamaaday diyaar garowgii ugu dambeeyay ee dagaal qalabkoodana loo dhameystiray toddobaadkan ciidankan waxa la sheegay marka hore askarta Kenya ay weerarka la gali doonaan marka dambana ay qorsheynayaan inay iyagu libta sheegtaan waxaana dagaalgelintooda u xil saaran gaashaanle lagu magacaabo Chichile oo ay isku beel ka soo jeedaan madaxweynaha Jubbaland iyo saraakiil dhowr oo ka mid ah kuwa sirdoonka Kenya oo asalkoodu yahay Soomaali dhinaca kale ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maalmahan qalab iyo ciidan hor leh loogu geeyay goobaha ay Kenya iyo ciidamada kale isku horfadhiyaan ayaa iyaguna u muuqda kuwa keebla yurura oo heegan u ah in ay maalin iyaga iyo dhigooda Kenya masraxa dagaalka fooda isku daraan mar kale warbaahinta gudaha Kenya qaarkeed ayaa tabisay toddobaadkan inay Nairobi ka walaacsan tahay ciidamada lagu daabulayo xuduud beenaadka labada dal ayna u aragto arrin walaaceeda la waqtigan sida muuqata haddii uu hirgalo qorshahan cusub ee Kenya waxa luuqada wada hadal iyo diblomaasiyadda bedelaysa xabadda iyo rasaasta kuwaas oo noqon doona xalka labada dhinac Soomaaliya ayaa awoodeeda ciidan ku tijaabin doonta difaacista Gado oo ay Kenya rabto inay u gacan geliso Jubbaland oo siyaasad ahaan fallaaga ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale Kenya ayaa uga faa'iideysan doonta dagaalkan mashquulinta shacabka iyo dawladda federaalka si ay fursad uga hesho xadeynta xadbeenaadka ayna u waafajiso sheegashadeeda biyaha ee Soomaaliya haddii sidaasi xaal ku socdana waa halis iyo baylah kale oo soo wajahda dhulka iyo biyaha Soomaaliya dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo ay hormuud ka tahay xogaynta IGAD ayaa socda si xaaladda hoos loogu dhigo Ethiopia ayaa walaaceeda xaaladda xadka la wadaagtay labada dhinac waxaana suuragal ah in la xilli hore oo asbuuca soo socda loo kala dab qaado Nairobi iyo Muqdisho si kastoo ay ahaato Kenya ayaa damaceedu yahay xadeynta dhulka iyo xeebta Soomaaliya si ay uga faa'iideysato kheyraadka badda waana sababta ay Nairobi u doonayso inay qaado tallaabo kastoo ah xeelad ama xabad si ay u hirgeliso qorshaha degsan ee ilaalinta qaranka Kenya dagaalka ayaa haddii uu bilowdo waxa uu dhabarjab ku noqon doonaa howlaha nabad ilaalinta AMISOM tiyo ay Kenya qayb ka tahay dawladda federaalka ayaa wararku sheegayaan in 18 bishan oo biri ku beegan wixii ka dambeeyay ay qaadi doonto qaraar la xiriira arrimaha ciidamada Kenya oo ay goosan doonto inay ka baxaan gudaha Soomaaliya taas oo haddii la qaado ka dhigan tallaabo weyn oo culeyskeeda wadata dawladda federaalkuna aysan awood u lahayn ay kaga saarto ciidanka Kenya magaalada Kismaayo xaaladda kacsan ee labada dal waxay finiinka goosan kartaa saacad kasta waxaana jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in Soomaaliya ay si rasmi ah goor horeba qoraal ay uga ashtakoonayso ciidamada Kenya ugu dirtay qaramada midoobay Mareykanka iyo Midowga Afrika si dalka looga saaro ciidamada Kenya howlgalka nabad ilaalinta qaybta ka laakiin bilowgii soo galitaanka ciidankanba
waxa aan meesha ka marnayn inay dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan ka haysan sharciyad ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii xilligaasna ay ku kala qaybsameen